waxaan tacsiyo u diraynaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii qaraabadii ay ka baxeen labada marxuun ee kala ah Maxamed Deeq Cabdulqaadir iyo Maxamed Sheekh Cali oo lagu dilay falkii fooshxuma ee ka dhacay degmada Howlgadaag kaasoo uu geystay askari ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed. ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay ku raad joogaan askarigii falkaas uu xooshnimada u geystay waxaana haatan xiran taliyihii aaggaas mas'uulka ka ahaa. waxaan shacabka Soomaaliyeed ogeysiinaynaa in ciddii aragto ay booliiska ku soo wargeliso qofka dilkan ku eedeysan oo baxsad ah kaasoo lagu magacaabo Dable Ibraahim Maxamed Cumar annaga oo sawirkiisa idinla wadaagi doona insha Allah. askarigii qof shacab ah dhib u geysta ma heli doono gabaad sharciga ayaana lala tiigsan doonaa insha Allah. markuu dhacay falkan aan cudurdaarka lahayn kadib waxaa bilowday isu soo bax ay sameeyeen dhalinyaro ka caraysan dilkii labada marxuum taasoo dhalisay in dad qaswadayaal ah iyo kuwa lagu tuunsan yahay inay u adeegayaan argixisada ay fuliyeen falal isugu jira burbur hanti shacab iyo boob loo geystay goobo ganacsi isla markaasna taayiro ku gubay wadooyinka caasimadda. waxaan haatan gacanta ku haynaa dad lagu tuunsan yahay inay ka dambeeyeen falalkaas lidka ku ah amniga iyo nidaamka dawliga ah waxaana la tiigsan doonaa sharciga cid walba oo lagu helo falalkaas burcadnimada ah. dhinaca kale waxaa jirtay falal ay ciidamadu isku rasaasayeen meelo ka mid ah magaalada Muqdisho waxaana hay'adaha amnigu caddaynayeen in haatan loo xiray saraakiil iyo askar lagu tuunsan yahay inay ku lug lahaayeen falalkii shalay iyo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. waxaan uga digaynaa mas'uuliyiinta ka tirsan laamaha kala duwan ee dawladda kuwaasoo ilaaladoodu ku xadgudbaan hannaanka sugidda amniga caasimadda iyo baraha loo asteeyay in baaritaanada laga sameeyo in iyaga aan sharciga la tiigsan doono. askarigii ilaalo ah ee faldambiyeed ku kaca waxaa sidoo kale mas'uuliyaddaas la qaadaya qofka mas'uulka ka ah ay waardiyeynayaan qofna kama sarreeyo sharciga. waxaan faraynaa dhammaan mas'uuliyiinta iyo shacabkuba inay tixgeliyaan awaamiirta ciidamada har iyo habeen dhaxanta iyo kuleelka u taagan sugidda amniga. wabillahi tawfiiq. asalaamu calaykum.